adigoo shaqo aad u hooseysa raadinaya ilaahay makaa dhigay maalqabeen loo shaqeeyo oo shirkado leh qisada maanta aynu ka sheekeynaynaa waa qiso qaabkaas oo kale ah ugu horreyn soo dhawaada intiina hore soo joogtayna subscribe ta like iyo share intaba israaciya gacmo waa shaqeeyaan saaxiibayaal kuwa soo socda ee marka hadda imanayana gacmo furan baan ku soo dhaweynaya iyo qalbi furan iyo niyad saafiya soo dhawaada saaxiibayaal dhamaantiin xilli walba neetayba wanaagsan kay habeen u tahay habeen wanaagsan kay maalin u tahay maalin wanaagsan oo wacan idinkoo wada wanaagsan iyo anigoo wanaagsan soo dhawaada qisadan maanta waxay ka dhacday dalka Mareykanka waqti aan sii fogeyn nin dhalinyaro ah ayaa maalmaha kamida waxa ka war helay in shirkadda Microsoft ee uu leeyahay Bill Gates ay soo xayisiisay shaqo nadaafada وانا دنيرا او فقيرة ماشي انترفيوغا لغو قادي بو تغي شقادي بو يعصدي والله اقبلي ماشي انترفيوغا لوغا يري انترفيوغا marka laga qaaday waa lagu qancay wax lagu dhawaano ku qanacnay noo sheeg emailkaaga si aanu hadhow kula soo xiriirno nasiib daro waxa ku jawaabay wax email ملهي اسكداك ايميلي كمبيوتر iyo telefoon qaaliya midna ma haysto waxa lagu wiri saaxiib wad naga raali ahaanaysaa niman email haysan oo meel la soo xiriiraan lahayn anagu shaqo uma dhiibanayno Allah xanuun kulula shaqaad u baahan tahay marka intood heshay hadan lagu raahdo waanu ku fasaxnay amba waanu ku diidnay maxaa dareemi lahayd adigu saaxiib ninkii waxa lagu wiri waad fasaxan tahay shaqada kuma siin karno maadaama bila email tahay isagoo murugaysan ayuu ka soo baxay albaabkii shaqada uu cusanaayay waxa weeye suuliyada dhismayaasha shirkadda Microsoft ee ku shaqeysa ku dhex yaala inuu nadiifiye ka noqdo waaye halka markay sheekadu marayso ninkii isagoo murugaysan ayuu ka soo baxay shirkaddii dhexda isagoo maraya ayaa waxa uu arkay meel wadada geerkeeda ah amba wadada agagaarkeega wiil dhalinyaro ah oo ku iibinaya tamaad ama yaanyo oo dad badan ay ku urursan yihiin oo wax ka iibsanayaan isla markiiba maskaxdiisa soo burqatay fikrado iyo curin ninka ragana marka la ciilo ayo fikrado ku dhashaan nin ragi baa leeyay ciil cadaab ka doori in lagu ciilo oo wax lagu diido oo lagu walciyo oo haddana ma lagu raahdo waa waxyaabaha ugu fiican ee kugu dhalin kara inaad isbedesho hadda dhiig leedahay way ninka dhalinyaradii waxa uu markiiba maskaxdiisa ku soo dhacay fikrad ah inuu isaga laftarkiisu sida ninka yaanya ka ganacsado $20 oo haystay oo jeebkiisa ku jirtay oo kaliya ayuu suuqa dib ula galay wuxuu soo iibsaday kartoon amba kees yaanya ah waa uu iibgeeyay isla markiiba laga iibsaday lacagtii uu ku iibiyay laabkeed buu ka faa'iiday isagoo faraxsan buu habeenkii gurigiisa ku hoyday inaad adigu si xor u shaqaysatay 100 jeer ay ka fiican tahay inaad xafiis manager ka noqoto adoo shaqaalo oo inuu shaqeynay ereyga kun sadar host calaamadayso inaad shaqaale noqotaa waxay ka fiican tahay baan niri inaad manager noqoto manager shaqaale ah mishaar heer sanaad ku shaqayso waliga baad doonaysa maalin labaadkii ayuu ninka dhalinyarada ah soo kalahay waxa uu iibsaday intii in leeg laba kees buu iibsaday maalinkii dambe laba kartoon buu iibsaday oo yaanya intii afar laabkeed buu ka helay maalin saddexaadkii xilli hore ayuu soo kalahay ilaa sirtii noloshu fahmay si xor u shaqaysanaya cid uma shaqeynayo saddex kees ama saddex kartoon oo yaanya ayuu soo iibsaday 6 jibaarkeed 10 jibaarkeed buu ka faa'iiday muddo yar kadib wuxuu soo iibsaday gaari gacan aw xaafadaha khudaarta ugu geeyo oo macaamiishiisa iyadoo gurigooda jooga ugu geeyo muddo yar kadibna gaari buu iibsaday
أو خضارته كسو دابلو مدة 5 years كدب أما 5 سنة كدب وحو نقضي مليونير تاجرة oo keena soo dejiya cuntada bakhaare waaweyn oo khudaarta iyo cuntooyinka lagu iibiyo iskale muddo 5 sano kadib ayuu shirkadiisii caymis u raadiyay iyo deyn markii baagaroonkiisa ay baadheen qoladii uu maalgelinta ka rabay caymiska ka rabay isla markiiba ay ku qanceen waa loo yeedhay waraysiba laga qaaday waa loo ogolaaday intii u dambeysay heshiiska markii la joogaa lagu yiri noo sheeg emailkaagii si aanu projectiyada iyo heshiisyada waxaynu isku waafaqnay iyo waxaan xilligan shaqada bilaabayno si aanu kugu soo dirno fariimahaas iyo wixii uu khuseeya noo sheeg emailkaaga waxa uu yiri raali hada wax email la yiraahdo anigu ma lihi wax email la yiraahdo ma isticmaalo anigu wax lagu waayahay sideeba adigoon email isticmaalin nimankii way la fajaceen oo sheeko cajiib ku noqotay inaad muddadaas 5 sano gudaheed aad taajirka bakhaarada ku noqoto su'aal kale oo raacin waxa ku yiraahdeen haddii aad email maanta lahaan lahayd bal ka waran sida noqon lahayd wax aani filim ku jawaabo wuxuu ku yiri haddaan email lahaan lahaa maanta waxaan ka shaqayn lahaa suuliyada shirkadda Microsoft waxaan ka shaqayn lahaa oo shaqaale nadaafadeed ka noqon lahaa mid ka mid ah suuliyada shirkadda Microsoft balse email la'aantii ayaan maanta milyaneer ah qisadaasi cajiibka waxaynu ka faa'iideynaa aynu ka qaadanaa dadka kuma marsiyoonaya anigu waan shaqaysan lahaa balse waxaas iga dhiman anigu waan shaqaysan lahaa laakiin aabahay waa miskiina anigu waan shaqaysan lahaa laakiin reer laangaaba ka dhashay anigu waan shaqaysan lahaa balse computer telephone ma haysto ninka dhalinyarada ah waxa uu dhiirigelinayo tusaale u yahay qof walba oo naftiisu ku xidhay xabsiga mamarsiyada iyo cudurrada dhalinyaro fadhiga ka kaca shaqaysta intaan xalqad la mid ku kulmi doono waxaan idin leeyahay nabadiino assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh like share iyo subscribe waxagin ما تنيدين دمانتين